الو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أصحابتي إذا فيسبوك سوقلا 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 السلام عليكم واسكو حيسنا وملينا سوقلا موقلا سوقلا 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 على صوت كل يبا ما أنت إن بدنا اسموجين وملينا سوقلا marka hawagaasoo dadka soo bataan mawduuca isu sheegayna kadibna soo qabashada waa nin walba ra'yigiisu ka dhiibana laakiin marka hore hawga dadka noo soo bataan share gareeya dadka noo soo bataan share gareeya kulli bariyahan tacsiya igashay kulli tacsiyadaas iskaga mashquulsana buugi iga weynaa iga dhintay xamar ku dhintay kulli waa idin sheegan umaleynaya marka haddana kulli bamaantana waa iska yar xanuunsanaa laakiin waxaan isiri dad nin kasta wuxuu leeyahay adeer maxaa kugu dhacay marka waxaan isiri bal hataa xoogaa yar wax un la wadaag dalba dhalinyarta iyo odaya maadaama odayo maxaa kugu dhacay ku leeyihiin bal waxaad yeelaysaa xoogaa bal un wax yar khadiijo waa salaamanta adeer waa idin salaamay سلطان عبد العزيز واكو سلامي أذير وحاوي مسلمة كوين واكو سلامي أنا كل جين انت بخدك كجرت أنا إذن كلاقات قادين وسلامنتين خيرا إذن رجينا يا كل إن شاء الله بإذن الله كريم أنيقا كل بوحن موضو laakiin wax jira baan ka hadlaynaa wixii jira adaan soo bandhigana idinkana waxaan idinka codsanayaa siday tahay inaad uga jawaabtaan share gareeya like gareeya dadka ha arkaan dad badan Falastiin ismaa adeer waa salaaman tahay Axmed Abdullaahi aadan adna sidoo kale waa salaaman tahay adeer marka insha Allah bin Umar Shariif adna waa salaaman tahay kulligiin waa idin salaamay إن شاء الله بإذن الله كريم كل الحمد لله رب العالمين dadka waa dhararooyina umalayna marka insha Allah mawduucanaga waxaas yahay mawduucan ka hadlay Abu Abdullaahi Abu waa salaamantahay adna marka waxaan ka hadli doonaa maanta Soomaaliya wax kasta ka dhaca dhibaa dhaca oo maanta oo loo geysto khaasatan ha u badnaadeen ilaahay ku roonaade dadkan oo seeflabood waa kan Umar Shariif seeflabood waa ka adeer kam suuma waaninkan seeflabood waa kan kuma dhina adeer seeflabood waa kan Ibrahim Maxamed adna waa salaamantahay adeer Maxamed waa salaamantahay موضوع عن كهلينا ما أنتوا حاول أذيريال وحان مقلنا ميل هبلوة عبار كدعدي ميل هبلوة لبر روح اسكد الشيء ميل هبلوة معناها قبيل يا قبيل اسكو هيستان يا أو معناها تبهو أركينا معناها صومالي وحد دقا أن لبقوا لها دكتا صومالي جرير صومالي جلاء با دكتا مركا وليانا ما أركين انت سيتو دبات دعدنا وحان مقلنا هي معنا محل ديجري هيئات هنقطو إلهي كورونا دي هنقضان قلوين كان أو تلفزيونات هنقضان وي كهدلان يا وي كهدلان فؤاد اسمان وسلام منتهي أوكي محالو واي سؤال شوية سؤال ماشي تاجن مانتا أيان إسو شيغينا كل با بوغينا وكسوا قري موضوع هورانتيسنا waa ku jirta Abdullaahi Umar waa salaamantahay maxaa loo waayay dhibtaan loo geysanayo ama dhibtaan masiibaha ahaato masiibo qaran sida biyaha wabiga ha ahaado iyo waxa sayto koow iyo masiibada loo geysanayo oo dilka la dilayo masaakiintan Soomaali baantuuda ah
dhaca loo geysanayo masaakiinta Soomaali bantuuda war maxaa loo waayay idaacad ka hadlaysa ha ahaato idaacadda dawladda ha ahaato idaacadaha madax banaan ha ahaadaan sida Home Cable ha noqoto Universal ha noqoto maxaa la dhihi jiray idaacaddan Puntland Garowe ha noqoto idaacaddan maxaa la dhihi jiray Eelayd hataa ha noqoto idaacaddan maxaa la dhihi jiray Ogaadeynta Jubbaland ka dhisan ha noqoto ya xamar waa intaas idaacadaha ayagana ku yaalan war maxaa loo waayay hal idaacad u jirnaxda masaakiintan oo dhibaatadooda faafisa wallahi billahi tala intaan ifka ku noolaa waxaan maqlay idaacad la yiraahdo RTM ya ma ogi oo Nairobi ka soo hadashay dilkii loo geystay yarkii oo Kismaayo laga dilay idaacad taasaan ku arkay haddaba su'aashu waxay tahay dhalinyaro dadweyne odayaalow haddaad daacadtiin aniga waxaan u yeertay oo keliya Soomaali weynta oo daacadda ah maahe uma yeeran aniga Soomaali qabiil ah uma yeeran Soomaali qabiil u eexanaysa uma yeeran aniga waxaan u yeertay Soomaalida runta dhabta ah meel kasta ha joogto waqooyi ha joogto koonfur ha joogto ya dibadda ha joogto North America Europe meel kasta ha joogto aniga waxaan rabaa ya Home Cable meetan idaacadda hadda maanta ugu af dheer idaacadaha localka waa bahashan la leeyahay Universal TV hatta Universal TV ka soo qaad ma arkin aniga iyadoo ka hadlayso war dhibtaasa ninka dadka Soomaali bantu loo geystay war dhibkaasa Soomaali bantu haysta dhibaatadaas maxaa loo waay uqdadan saan u weyn halkay ku jirtaa uqdadan saan u weyn oo Soomaali bantu loo hayo oo u hayaan idaacadaha Soomaalida waa halkee waatan tan hadda inta taalam hal dhihi jiray VOA weligeed ma maqal weligeed ayadoo ka sheekaynayso dhib Soomaali bantu ah weligeed ma maqal hadda hal nin ha laga dilo Ohio hal nin ha lagu dilo Soomaali oo jile ha lagu dilo maxal dhihi jiray kaas kale maxal dhihi jiray Raskiamboni hal nin ha lagu dilo maxal dhihi jiray Jubbaland afkooda saasay u kala qaadayaan war masaakiintan dilka dhibaatada dhaca wax kasta loo geysanayo idaacadahan ilaan idaacad waxaa la yiri wariyaasha dadku way u siman yihiin la yiri wariyaashaanayto maxaa ka go'doomiyay inay wax u macnaa faa'iido leh u geystaan masaakiintan hadalku waa idin furan yahay ninka qabasho rabo waa la soo qabanaya soo dalbada aniga intaas way maanta wixii aan ka hadli lahaa Soomaali bantuuda maxaa idaacadaha ka soocay oo dhibaatada loo geysana idaacad ka sheekaynaysa aan la arkaynin maxaa u sabab ah waa la dilaa waa la dhacaa waa la kufsadaa wax kasta la sameeyaa idaacad maanta u jirnaxiisa ay leedahay war nin Soomaali bantuuda sidaa la yeelay ma jirto aan ka ahayn hal idaacadan ka maqlay hal idaacad okay waayahay ciddii rabta soo qabasho waan soo qabanaya soo qoro marka dheeshu intaasay dheeshu waa sidaas dheel kale ma jirto maanta waxaan ku dheelaynaa oo keliya arrintaasaan ku dheelaynaa الو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. marka hore aad baan kuu salaamayaa ugaas aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaad ka hadashay xaqiiqada runtii oo meesha taalo waana wax muhiim ah in la isweydiiyo aniga waxaan joogaa horta Muqdisho Soomaaliya ma fahanti saa waa fahmay adeer khayran ku rajayna khayr ilaahi nabadda kaaga siiyo bulshada horta walaalow ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqiina maalinta qiyaamo idakama habaabiyo aad baan uga xumahay dulmiga iyo dhibaatada iyo fasahaadka aadda maanta Soomaaliya ka socdo in 500 qarax ku dhimato 600 meel ku dhimato 20 meel ku dhimato waa waxaan gacmeena ku geysanay ilaahay subxaanahu wa ta'aala nama dulmin waa sax waxaana sababay dulmigaasi waxaa sababay waxyaabaha daa ka hadlaysid idaacadaha localka waxay ku shaqeeyaan NGO-yo waxa ninba ka amar qaata maanta aniga wax dilayo ama ana adeerkay la dilaya
isla markiiba idaacadii aan wacayaa waxaan leeyahay in adeerkayba halkaas lagu dilay waa inaad soo tebisaan ma fahanti gartay marka waxa waaye Soomaali bantu waa dad islaama oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ee si sharaf oo wanaaga xoogooda iyo dhididkooda ku cuno kuna xamaasho hadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay qofka adoonka dhididkiisa cuno oo shantiisa waqtina dukada ayuu Ilaahay jecel yahay sax waay dulmigii iyo wixii lagu hayeen aniga ma malaynayo Soomaaliya inay dagayso ilaa yawmal qiyaamaha hadii la alla ay dagayso la toobad keenani waa in marka hore dulmiga la joojiyo lagu hayo dadka masaakiinta runtii wiilka hadda lagu dilay jubbada hoose Kismaayo dad badan oo ka horeeya la dilay oo Soomaali bantu xogaa ay mudaharaad yar aan arkay mudaharaadkaas runtii aad baan ugu farxay aad baan u dhiirigeliyay aad baan u sheer gareeyay marka waxaan moodaa dadkii xaqiiqadii iyo dulmigiiba inay ka sii jecel yihiin inay dulmiga faafiyaan ee xaqiiqada indhaha ka qabsadaan sax waay marka waxa jiri doonto maalin la qaawan yahay Ilaahay la hortaagan yahay oo laan dheere iyo laan gaab iyo laan hebel midna uusan jirin gartay aniga kula hadlay beenku ma sheegayo dadka hadda magaalada Muqdisho inkastoo hadda oo laba dhinac noqotay oo dhinacna dawlad sheegato dhinacna farmaajo madax u yahay dhinacna ay yihiin ciidamadeena kale oo Arsenal gartay markii hadda Ilaahay laga baqanay oo cadaaladda xaggeeda la fiiriyay dhinacana hadda kale oo cadaalad ay u dhowdahay oo aan reehebel la isku xukumayo kitaabkaas ninba soo doona u fasirto ama nin ha u fasirto soo jecel yahay ama nin kale ha u fasirtay markaas hadda aan fiiriyay labada dhinacba dhinac hadda aan isleeyahay maanta Soomaali bantu sumcadoodii iyo magacoodii iyo sharaftoodii iyo wanaagoodii waa soo celinayaan waxaan u maleynayaa kuwan kale inay yihiin gartay marka dulmiga iyo xaqiiqada hadii aan laga hadlin waxaan aniga Ilaahay ka bariyay hadda ka hor waxaan ka tagay Soomaaliya muddo dhowr iyo 10 sano aan ka maqnaay markaan ka baxay Ilaahay waxaan ka bariyay qabiilka aan ka dhashay in ay u keeno wax ay ku hilmaamaan ama ay ku inkiraan qabiilkooda inay ilaadan Ilaahayo manihin kaas manihin ayagoo dhahay Ilaahayo itusaan sababta waxaan arkay ruux muslim oo la soo qabtay oo xoolo lagu lahayn oo laga nasab fiicnaan oo laga aabiyo ay fiicnaan oo markii bac lagu shiilo lacag la leeyahay intaas oo $1,000 haduu si bixinin waa noo afduubnaanaya bac lagu dhijinayo inna lillahi wa inna ilayhi hayya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaana wuxuu yiri fidna ka cabsada aan camimaynin qofka sameeyay ida camimaysa aan ku ekaanin qofka sameeyay soori aan ku ekaanin qofka sameeyay ida camimaysa adika dhan fidnadii hadii markii aan qori qaato qofkaas aan u tagi karin oo dhigi karin qofkaas waa ka soo deynaya qalbigan ka nacay waana ka haajiri gartay hadda markaan soo noqday oo aan dalkii ku soo noqday oon isir xoogaa ififaale yar oo xoogaa dawladnimo iyo waxba la helay aan isiri ayaa waxaan ogaaday in dawladnimada iyo waxa ififaalaha iyo wixii rajo ahaayeen qabay oo dhanbo inay wiliba faanol farakama qodna ay taagantahay Soomaaliya haye maalin hore waxaan watay gaari yar oo ku raaxada aan watay meel baan lagu celiyay control baabuurta la baaray 3 askari oo kamid ah askarta wax baaraysa 2 kamid ah bantuya ahayn gartay midba marka gaari baal xuno baashaas dhaxlugoleeda bajaajta waday ayaa wuxuu yiri jareerta xunta niyow annaga saane 4 saac wadada noogu dhibaan argoosi may wadaan waxaan yiri 28 sano saarneed 3 daqiiqo oo ay ku baarayaan ay isku dileen ay isku dhaceen 28 sano dhaceysay oo dileysay 3 daqiiqo ku baarayo ayaa dibsanaysaa wax baad wallahi billahi waa u sheeg waxaan yiri 3 daqiiqo oo ku baarayo oo amaankaaga iyo nabad sugidaada iyo oo u taagan qoraxdaas inta litir biyo qabow soo gadi leeyada siin leeyada dibsanaysaa 28 sano ka warna ay ninka aad dileysay beertiisa dhaceysay xoolihiisa dhaceysay dhiigiisa xalaalaysanaysi bal ka warna ay maanta inna lillahi wa inna ilayhi marka dalkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sako toobadkeen badan oo rabaa cadaalad badan oo rabaa wax soo naasacad ma leh wax cadaalad leeyahay ma jirto madaxdiyaaba hadda kala boobayso oo imaaraadka loo kala dhoomanaya ma ana maqli jirto nafsiga hadda meesha Soomaaliya taagan ma maqli jirtay qofka aan u hanjabeena ama aan yasan waxaan dhijina ma arabana mooday Soomaha ha hada arabti alla maanta arabta ugu dheedeelayso
marka maanta waxa mudane cadaaladda soo yara ifeeso laba u soo socoto adeer dhegeyso waxaan hadda carabtaanay aad sheegaysid xilligii siyaad bare nin cabdulaahi dhoodaan la dhihi jiray ani gabay saas uma aqaana ninkaa reer waxaadan iska ahaye waxaa jiri macnaha wuxuu arkay dad soomaalida ay leedahay annaga carabaan nahay kanaan nahay markaasuu yidhi tuugsasha miyaa ma ogi daasada carbeeda loola tegayaa wax gabay noocaas ayaa jiray haddaad xasuusan tahay ma aqaane marka soomaalida aad arkaysid soomaalidii hore ma aha soomaali waa dhammaatay soomaali ma jirto soomaali ha sugin madaxweyne ra'iisul wasaare walaa jinni balaayo soomaali ma jirto soomaali dhuuniyaa jirta hadda dhuuni taasa xaqiiqa maanta soomaali horta hal midaan ku fiicannahay maanta waxaan ku fiicannahay waxaad moodaa inay naga sii dhaqmayso yaa ree hebelehe yaa tolehe inay naga sii dhaqmayso yaa dhuuni hayooy yaa ra'iisul wasaare oo yaa maanta biyaha dabka oo saaran badarkeeda hayooy yaa lagu hayaa sax waay tii qabiilka waa dhammaanaya waa sii dhammaanaya qabiilka ani nibin waxaan la soo dhaqmay cusmaan adeer la yidhaahdo kuusaniya cali sabdiyo cusmaan adeer waa nibin makanaa haye qoonaan la soo cunay haye biyo webiyaan la soo cabay qofka biyaha webi cabay waa ka naxariis badaya qofka biyaha ceelka cabay waa runtaa taas been ma aha marka waxa waaye dhaqankii iyo ummaddii iyo wixii markaad fiiriso waxaan ogaanaysaa meeshaan soomaaliya fadhi kama qodno hadda iyo kadib iyo fadhi kama qodno rajada ilaahay lagama quusto ilaah inuu soo hanuuniyo oo nin soomaali baantiyo maanta oo ra'iisul wasaare ama madaxweynaha la helo oo cadaalad la maamulo maalintii la dhahay oo siyaad markii la dhahay midkii oo siyaado hadday jaga saas tahay jareer jaga hayaa la arki lahay waa xasuustay aye markaas oo siyaad jareer kuma taagnayn sax waay laakiin jareer markaas waxay raadinayeen jaga oo nin jareer hayo qatar oo la fiirinayo sax waay dalxa hadda waa aragtay baaska uu dhiibaya markuu qudbaynayo kabtaada iyo tolkaada dhexda baa looga jiraa marka khudbadiisa ma dhegaysatay waa dhegaystaa laakiin hoogaa waa dhaliilaani khudbadiisi ninkaas waxa waa dhaliisha ha dhaliilin maslaxaddaa ku jirto ninkan waxa waaye 500 oo kelmad markuu ku hadla 2 xaboo darba oo muhiim oo geliyaa ninka hor maaha ha dhaliilin aniga xamara jooga xogta ogahay bes taadaa jirta hadduu ree hebel wax ka sheego waa la falaashaa hadduu nin ree hebel wax ka sheego waa la falaashaa xaaskiisaaba dadka wax falaasha ah maqlay ma aqaanin ya xaaskiisa marka waxa waaye waa naari meel qabow ma leh insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa in uuna soo hanuuniyo hanuun baan ilaahay weydiisanaynaa fari kama qodno soomaaliya waaya khayran kuu rajaynaa kulley anigana waxa meeshaad joogto waad ii sheegtay anna waxaan jooga waqooyiga american jooga new york ayaan jooga magaalo register la yiraahdo marka adna ku nabdano adeer meeshaad joogto khayran kuu rajaynaya dadka kale ayagana waan siin doonaa insha allah mar kastana waa kugu soo dhaweynaa facebookgayga aniga soomaali jareer markaan idhaahdo sida daacadda baan ku hadlaa maahe ma iraahdo waana dulmeeka aniga waxaan abbaaraa oo keliya dhibta meesha ay ka taagan tahay oo keliya meel kale aniga dan iima aha maya horta waxa waaye wixii jiro oo xaqiiqa in laga hadlo waa muhiim ninka waxa waaye maanta dad oo jileeca oo wasaqe oo annagoo ree hebele annagoo laandheera annagoo saas annagoo kableyo facebook ka buuxo la kuwaas doqomiin waaye marka waxaasoo kaleeta aniga blogan ugu faatixeeyaa blogan ugu roonaadaa laakiin markaan adiga badanaaba lifekaaga badan intaana inkastoona nasiib u helin caawa nasiib u helay lifekaaga badan waxaad ka hadashaa waxyaabo muhiime oo reality oo dhacay oo aadan qofna ku xumaynin qofna ku duraynin oo reality ka hadashaa adi lifekaaga inta badan waa la socdaa waayahay adeer waaye cumri dheer iyo caafimaad marka insha allah qofkii dadkana jaanis aan siiyo qofkii qalad kuu fahmana hadda waxa waaye ka socob shanta furood ilaahay muslimin sax waa adeer sax insha allah dhammaan waxaan u rajaynayaa soomaaliya in ilaahay subxaana watacaala soo hanuuniyo oo keena jireerka keena jileeca ilaahay kii u dhowaa noogu khayr badane ilaahay subxaana watacaala kuwii u dhow aan noqono waayahay adeer waaye insha allah anna khayran kuu rajaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tahay waayahay adeer
Allo, assalaamu calaykum soo dhowaada dhalinyar iyo waayeelba soo dhowaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa maxay macnaha idaacadaha dowladda ha lahaato, maamul goboleedyo ha lahaadaan, ya local ha ahaato idaacadda, maxay uga hadli laayihiin dhibta loo geysto qowmiyadda masaakiinta Soomaali baantuuda ah, maxay uga hadli laayeen? waxyaalaha kale qowmiyadaha kale hadday isdilaan ayaga iswarameeyaan ayaga istooriyeeyaanba way sheegaan. masaakiinkan asagoon waxba geysan la tooriyeynayo dhibta loo geysanayo maxay u sheegi laayihiin? programkayaga waa intaasayto, ninkii rabo waa la soo qabanaa, soo sheegta. aniga cidna ma faquuqo, aniga waxaan ka hadlaa waxa jira oo keliya, inkastoo beryaan aan ismoogeen haddana diyaaraan idin ahay soo gala. wixii ninkii qabashara waan soo qabanayaa. sheergareeya, hala sheergareeya beenaha. aniga digniin ma bixinin maanta dhalinyarta ama dadka facebookgayga oo macnaha friendiga la ah, aniga ma siinin macnaha wax la yiraahdo warbixin, ma dhihin waan soo gelayaa, ma dhihin. marka insha allah biidnillaahi kariim idinka iska sii sheergareeya, midba midka ku xiran hasii uu sii arko alla sheergareeyo. marka ujeeddada ugu weyna waxay tahay idaacadaha Soomaaliya. idaacadaha Soomaaliya baan ka hadlaynaa maanta. Soomaali baantu waa inay samaystaan warbaahin u gaar ah yahay lama argada ayaa dhibaya haka sugin in ku okay. adiga maxamed cadde waan maqlay hadalkaaga. Soomaali baantu kulley baaday samaysato kulley ayada u dan ah, laakiin laba goodle oo dhan ma aha. arrintii ka dhacday Kismaayo idaacad baa faafisay. idaacaddaasna ma ahayn idaacad Soomaali baantu ay leedahay, ma ahayn. waxay ahayd idaacad lama goodle iskale ay ahayd. RTM maa la dhahaa, ma aqaano, oo Nairobi ku taalo ayaa arrintan faafisay. ma lahayn Soomaali baantu, ma lahayn. waxaa iska lahaa dad Soomaali ah. gabadha weriyahana waxay ahayd weriye Soomaali ah, gabar Soomaali ay ahayd weriyada. marka hadhihin sidaas adiga. marka dadka lama fogeeyo, waa la soo jiitaa maayo, lama fogeeyo. inkastoo dhanka xumaanta ay u badan yihiin, laakiin haddana qaar iska san waa jira oo jirna. hadda wiilka hadda hadlaya oo kale nin Soomaali waay, wuxuu ku hadlayna waad maqlaysay. Soomaali baantu muusan ahayn. ilaa iyo hadda nin Soomaali baantu intuu soo gala ereyo macnaha oo waa hadla ra'yigaygan dhiibana uu dhahay male. waxa idin haysta idinkaa og. adaa soo galay, maxaan u malaynayaa haddaad Soomaali baantu tahayna toos uma aadan soo gelin, qoraalad soo qortay. maxaa wejigiina qariya? meel kasta saasad uga oodan tihiin. maanta waa sabdi, reer North America ma al Yurub fasaxad qabtiin maad soo gashaan haddii daacad aad tihiin danihiina ama dadkiina u danaynaysaan. anigaba waa ka anoo xanuunsanaan soo galay. soo galay wiga wallaahi ah, waayo dadkaygan u danaynoyaa. aniga wax haddaanan u tarayna waxaan jeclaa ina afkayga wax aan ugu taro. afkayga keliya wax inaan uga taro. seen wax ugu taraa waaye dhibtooda ayaan gaarsiinaya meel shishe. waayo aaladda ugu xoog badan adduunyada lagu dagaalmo waa social media. haddii oo xabaddana aydan haysanin, meel kasta aad ka maqan tihiin, social mediana aad ka maqan tihiin, maxaa dadkiina u taraysaan idinku waay? khaasatan dadkiina jooga dibadaha, ya mise waa waxbaa iska cunaysaan, waa iska seexanaysaan? aamiin ya allah fu'aad. intaad wax iska cuntaan ma iska seexanaysaan? ya war dadkiina u tura, ilaaha ka cabsada. ilaahay maalintii la qatan yahay, la qaaban yahay, wallaahi billaahi waa idin su'aalayaa Soomaali baantuwey. ani dad badanaan aqaana oo qoonyahan ah oo Soomaali baantu ah. markii aan joognay qaxootiga iyo meelahaasayto kaale arag sidii layska dhigayay. haddana waa kan cid soo gelayso ilaahay abuurtay ma jiraan. cid soo gelaysa ilaahay abuurtay ma jiraan oo dadkooda u hadlaya oo maanta dadkooda wax tar u leh. war ninkii social media dadkiisa wax uga tari waaye ma hanti intuu isku aruuriyo ma dadkiisa u dhiibi karaa? maya waay.
waxay ku leeyahay badan gadayna kanaan samaynayna ya marka waxaad gadi kartaan male wax ma gadi kartaan haddaad waxba gadi kartaan oo ilaahayna idin la og yahay ya war social media wax uga gada dadkiina social media wax uga gada idaacad kulley maba samaysan kartaanba idaacad haddaad samaysan idaacaddiina waxay ku xiran tahay oo keliya maxaa la dhihi jiray facebooka idaacad oo maanta waad samaysan karnaa idaacad oo 24 saac soconayso oo adduun weynaha meel kasta tegi karta waa samaysan karnaa idaacad lacag sidaa ma aha ya laakiinse meesha ku jirtaa ya laakiin ayaa meesha ku jirtaa adeer waxaas waxaan u malaynaa kulley waa sidii hore mar hore laga daalay guddi qurbajoog iyo waxaas waa laga daalay hadda howshu waxay taagan tahay aniga sidayda waxaawe qof oo maanta oo runta markaan idin sheego qof maanta oo saas dad ugu xiran ma ihi waayo dhe ma socdo aniga nin saa u socdo ma ihi waa nin guri iska jooga haddii u badato dadka waxaan kula xiriiraa halkan telefoonkaasaan kula xiriiraa aan kula xiriiro telefoonka haddii aad telefoonka kula xiriirto waxaa la rabaa adna qof kula soo xiriira wallaahi bilaahi intii aniga hadda social mediahan aan ku jiray hal nin ayaan arkay oo maanta oo si toos ahaan igula soo xiriiray muqdisho waxaan u malaynaa in la yiraahdo maxamed cumar in la yiraahdo aan u malaynaa marka maalintii wixii aan asaga ku ballangnayna dee markaan waxii aan fulin lahaana ilaahay amarkiisa walaalkay baaba tacsiyadiisa la ii keenay meeshii aan aadi lahaa iyo tacsiyadii wada kulmay maxay waxaan rabay inaan meeshaasayto aan wax ka soo helo ama aan wax ka soo waayo aan tago meesha haddana waa sidii un bay ii tahay insha allah biidnillaahi kariim waan dadaalayaa laakiinse waxaan leeyahay soomaali weynta samaha jecel waxaan weydiisanayaa inay su-aashaan iiga jawaabaan su-aasha maxay tahay waay macnaha idaacadaha dawliga ah iyo idaacadaha maamul goboleedyada ah iyo idaacadaha lookalka ah ya idaacadaha qoladan facebooka samaystay oo midnimo qaran ay leeyihiin qoladan waryaha soomaali baantuuda kuma jirto miya midnimada qaranka soomaali baantuu kama mid aha miya soomaali qaran midnimo qaran qolada midnimo qaran aan weydiinoyaa halkaanay soo fadhiisanayaan farmaajo asaane ali khayr asaane aw hebelow asaane hebel waa xun yahay hebelaa kan ah anaga midnimo qaranaan nahay waryaa midnimo qaran haddaad tahay ya hadda fiiri midkan ay leeyihin duqbilow ka soo qaad duqbilow wuxuu sheegtaa inuu yahay midnimo qaran dadka hasuuqaya jubbalandna waa dadkiisii war hadduu asaga midnimo qaran yahay ma ogaadeenka la hadlo wardadow sidaan ma aha muu yidhaahdo eeg cabdisalaan gentleman waa nin isaaq ah cid kale ma tayrgareeyo wuxuu tayrgareeya oo keliya gobolkiisa waqooyi galbeed wuxuu yidhaahdaa waryaa hooy sidaan ma aha soomaaliyaad ka mid tihiin waryaa kanaatiin duqbilow intii dadkiisii wax ka sheegi lahaa oo dhibaatada ay dadka ku samaynoyiin uu dhihi lahaa war dhibaatadan dadka ka daaya dhib baad dadku ku haysaan uu dhihi lahaa ayuu dadka kale ayuu afka saaranaya dadka kale muxuu afka u saaranaya dadkiisaaba dhibaato wadeen dadkiisa le muu dhibaatada ka hagaajiyo ya midnimo qaran uu ku leeyahay midnimo qaran maxaa way marka soomaali baantuuga midnimada qaranku way ku jirtaa waayo midnimo qaran hadday ku jirto oo dhib loo geysanayo ya muu yidhaahdo war dadkaa midnimo qaran waaye qarankay ka mid yihiine war waxaan aad u geysanaysan ka daaya muu yidhaahdo duqbilow
ya ma dhahay midnimo qarannimadiisa sax ma ahan waa qabiil aniga intii meeshan Facebook soo gelayso ninka Cabdisalaan gentleman oo kale aniga ma arag waa nin daacad ah waa nin Soomaali ah ilaahay hamigiisa isku ceebayni taasan ilaah ugu duceeyna hamiga asaga macnaha hamiga ama kale hamiga asaga macnaha uu hiigsanayo waxaan ilaahay ugu baryayaa inuu isagan ilaahay ceeb iyo fadeexa ku tusin oo maanta oo sida uu rabo ay arrintiisa u noqoto waayahay kulleyba meeshan talaan u imid maxaad la aamusan tihiin hadla amal cabdiraxmaan iyo hadla cabdiraxmaan cabdi maxamed faarax ya kulligiina hadla maxaa ku hadlaysaan su-aashaydu waxay tahay maxaa hay-adahan oo macnaha qoladan maxaa la dhihi jiray telefishinadan localka iyo kuwa dowliga iyo kuwa maamul goboleedyada dhibta loo geysto Soomaali baantu maxay uga hadli laayihiin waa intaasayto ninka macnaha arrintaas jawaab u hayo soo qoro waa ku soo qabanaya maxay wax uga qaban laayihiin waa la dilaa waa la dhacaa waa la kufsadaa si kasta la yeelaa telefishinka hadlaya ma arkaysid laakiin nin Soomaali haddii sidaa ah loo hanqariifo ama ayaga isdilaan oo toore isku dhuftaan ama xabada isu geystaan waxaa leeyahay macnaha meel heblowa bandiiraleya waxaas ka dhacay meel heblowa ka dhacay dhoobleya waxaas ka dhacay intaa waxaa ka dhacay masaakiintana haddii kulligood dem laga dhigana ya cid dhehayso war meeshasaa wax ka dhaceen ma jiraan aniga marka tana ila weynaatay marka waxaan rabaa qof iiga jawaaban rabaa jawaabtaasayto aniga waa xuntayna ma dhahay laakiin nin walba ra'yigiisa wuxuu yahay ha sheegto waa intaas soo gala dee hala sheego waa run oo keliya lama rabo waa run oo keliya lama rabo hala sheego sheergareeya like dhaha laakiinse aniga su'aala jawaabteydaan rabo jawaabteyda id isiinayso male meesha waa isaga jirtaan miya okay kan soo qabo Abbas Ali Haji السلام عليكم. عليكم السلام عباس. ورنيو ورتو عكو شيء هذه وحياة عدت إسكتنا فهمت سومالي وامد فهمت. هيا. جرير إجلع بوامد. هيا. مرك وحياة ونولدي دين الإسلام كانوا عشيلي إن لو ذا سمية ما فهمت. هيا. لو نني وحديرين. وجيها هلا أركو يا. وجيها هلا أركو. وأكنا وجلي. هيا. سومالي وامد ما فهمت. هيا. قبيلك إسكتاف نوين هذا ضدك أو قبيلاتك كل رقمنا وحواد ضدك وين أو ضقوين ما فهمت. هيا. وادي مرة والموقتة قال لي هذا أي طول اللي قبصنا يعني عربت أو عرر الإمارات يودي بين تش أقصينا يعني فهمت. هيا. قبيلك عرر والموقتة عربت واي. هيا. مركز ضدك وين أو ضقياش إمارات قال لي هذا وحش يودي بين فهمت. هيا. ويقول لا يعني ساس جرت هير ولا جرو هير قبيل ده أنا ويقول أولياش ويقول يعني أنا كوحان ديل جرنا أولياش ووكا مرمل ديل جرنا ما سؤال واي. ما عليك دقيسو. وحي أنا عن موضوع وحن كاويدي تاس مركل هدي فيسبوك يكون حجرته
mar kale adiga dartaada qabiilka ayo waxa aad sheegaysid dartaadan u soo gelin aniga laakiin qabiilka ma hadlo waxaan ku iri oo keliya idagayso waxaan ku iri aabbaha keligaa maa ku dhalay may meeqaad tihiin waa badanaan anaga famil oo weynana okay haddii adiga lagu dilayo haddii adiga lagu dilay oo qof kale oo yidhaahdo war nimayow hiin maxaa cunugaanayta ka rabtaan aad u dilaysaan sax ma reerkiinu kala soocay mise wixii jira ayuu sheegay ninkaas wixii jira ayuu sheegay ma in heer kale ma socin haddaba dhegayso aniga reer ma kala soocin annaga ilaah baa nagu abuurtay koonkan soomaaliya sax waay waxaan ku iri soomaali jila iyo soomaali jareer unbaa ku abuuran safiican soomaali jareer tata qaaraa jira oo jareer oo haddana soomaali caadi ku abtirsadaa jira jareerta uuka soomaali ma hayn miya hadda dhegaysa dee jareer soomaali ay dhahday qaar aan soomaali ahayn idagayso soomaali mahanan kuma dhihi haddaan soomaali ma ah ku dhihi lahaa soomaali jareer kuma dhihi lahayn ani soomaali jareeran inta maraykanaan joognaa african waxaa leeyahay african maraykanaa la leeyahay sax maqlaysaa laguma dhahay haddii africa ka timid maraykan caadi laguma dhahay maraykan caadi laguma dhahay african maraykanaa lagu dhahaa aniga marka aniga soomaali waan ahay laakiin jareeraan ahay weliga ab iyo abna soomaalida meesha degan waxay dhihi jireen jareeray dhihi jireen madax qabiilkaada waa qabiilkaada hadii lagu sheego inaad ka xanaaqdid maaha ani ma xanaaq haddaan xanaaqi lahaa macnaa inta soo gelin lahaa magaca sax ani ma xanaaqin aniga ilaaha ii abuurtay laakiin meesha waxaa taala oo keliya soomaalidan kaleba hadday mid isku duraan iyo hadday isbaabiyaan hadday baasuuka isku ridaan idaacadaha lookalka iyo idaacadda soomaalida ay xaqa u leedahay oo loo wada leeyahay loo wada siman yahay sida national tv oo kale way sheegaane masaakiintan markii dil dhibaato rafaad loo geysto idaacadaha maxay u sheegi la'yihiina intaas waay bes okay taas waa miya anaa kuu sheegaya marka taasaa midkaa dhaha aan runtaa sheelaa dad imaam ka cabsiliye waa la ogyahay ninkan dadkoo dilaa ma fahamta ninkan kalena dadka ma dilaayo masaakiin waayo ma fahamta haye wuxuu dhaha ninkan walaalkee waa maxaan ku dilaa wuxuu rabaa iska qaato dhiig muslima gelaaye tii aakhiraan qabaa ma fahamta haye kan adduun waaye ma fahamta haye waa israacina yinkaay waa israacina marka waxaan ku sheegaa weriye haddaa maqashid ba rufiyaan waay weriyaha rufiyaan waay rufiyaan waay ma fahamta dadka isku diraan meel yirisan ka tusa fiiriya dalaala meel ka dhacay wuxuu dhaha kuwaas meeshaasii joogaan kuwaana meeshaasii joogaan ma fahamta haye meelhay joogaan u kala sheera ma fahamta si ay iskugu maagaan haddana isku sii dalaalaan haye okay marka weriyaha dhammaan waa rufiyaan meelaha u socdaa waqti kale aan sheekaysanayna insha allah haddii ilaahay idho waaya adeer waa inteed joogtaadi norway waaya norway anigana maraykanaan joogaa new yorkan jooga adeer ani runtii iguma leefna ma soo geliyaan ma fahamta caawa inaan wax kaa dhaadhiciy bisaan rabo nin odaya oo leef ku jira haddaa arkana u jawaabaan waa ma fahamta aniga adaan kuu baahnay live waxaan kaa codsanayaa inaad ka maqnaanin livekayga insha allah duu ilaahay idho waaya adeer waay khayran ku rajaynaa waay bye waad maqlayseen kollayba ninkaa wiilkaa norway jooga ra'yigiisuu dhiibtay wixii asaga maanta maskaxdiisa ah ayuu sheegtay marka idinka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa iyo hadda aniga weli iima soo gelin hal nin oo soomaali bantu ah weli ma soo gelin arrintana iyagaa khusaysaa arrinta waa arrin khusaysa soomaali bantu waaye marka soomaalidii kale ayaa la xawsanooyin oo soo gelooyin idinka waa soo geli la'diin wallaahi bilaahi wax idin hayana ma garanaya aniga carabkiina maa waxun ka cunteen ma aqaano carabkiina war soo gal haddaad rabta adi aniga afkan soomaaliga aan ku hadlayo wax kale iga ma ahan afkayga waan diiday ma ahan laakiin waxaa way arrintaanayto aan wado waa arrin khusaysa soomaali weyn ayaan wax weydiinoyaa marka
afkayga haddaan aan ku hadlo qof baaba dhici kartaa inuusan aqooninba afkayga. marka sidaa darteed ayaa horta afkaan aan ugu bedeshtay oo gajagajada aan uga hadlayo. marka hay dhibaysanina. marka idinka afkiina waad ku hadli kartaan, waad soo geli kartaan afkiina markaad ku hadlaysaana aniga afkayga waa u bedelan karaa. laakiinse inaad saanle u aamusnaataan dee xaq ma aha. ilaaha ka cabsada, dadkiina wax u dhiciya. Soomaali baantuye soo gala meeshaan aad arkaysa ana idinkaan idin fadhiyaa daacadda markii loo hadlo. dadkan kale walaal waaye, dadkan kale walaal waaye. dhibta unbaa dhibaysaa sidii unbay u hadlooyin maahee meesha idinkaa idin taalla arrintaaniito ya. iyo wixii kale soomaalida samaha jecel ya, iyo khaasatan weriyaasha ayagana samaha jecel. weriyaasha hataa meeshu way ku jiraan inay soo galaan. weriyaasha hataa waa sugoyaane. weriyaasha macnaha anaga eedda saaranayno haddaan Soomaali baantuunahay sababta ay naga warbixin la'yihiin dhibta iyo rafaadka tol dadkayaga haysta ayagoo ka hadlayaan aan la arkaynin waxa uu sabab ah ya, oo maanta ay u aamusan yihiin weriyaasha ayaan u baahannahay inay noo sheegaan. tan waa su'aal. weriye markii la yiraahdo waxaa weeye waa nin war wada, warka micnaha soo tabiya. haddii war aad soo tabinaysid ma warkaaga adiga qowmiyadaada oo keliya aad ka soo tabinaysaa ya. qowmiyadda kale adiga shaqa kuma lihid miya? haddii la dilo, haddii la dhaco, haddii la kufsado, haddii la cuno, adiga waxba shaqadaa ma ahan. laakiin qowmiyadaadaad u lahawsanaysaa. waxaadna leedahay weriye madax banaanaan ahay, waxaad leedahay ummadaasaan u dhexeeya ya. waxaad leedahay dal baan dhisay aniga. weriye dal buu dhisaa maayo, dal ma dumiyo ya. de taas too kuu soconaysa maha weriyow ya. weriye taas ma kuu soconayso. annaga haddaan qowmiyadda baantuunahay dhaliil weyn baan idin haynaa dadkiina weriyaasha ah ya. dhaliil weyn ayaan idin haynaa. qowmiyad Soomaali baantu haddaan nahay waana la dilaa, waana la dhacaa, waana la kufsadaa, waana la cunaa ya, waana la laqaa ya, waana loo hanjabaa. wax aad ka hadashaan male. marka taas waxaana tusaysaa in dad madax bannaan aydan ahayn. marka wallaahi waa yaab weriyaan ahay iyo hal qowmiyad leen wax warkeeda tabina iyo dee weriye lacag ka shaqaynaa tihiin. markaasito kulleyba ma tihiin weriye maanta oo madax bannaan oo dad oo dhan wax u taray. السلام عليكم أبتمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة. أنا واي اسمك عبد الفتاح واي. هيا. آت معنا داودي فيديوغا وحياله فربضان كهذا صديقي مرك. كذي. أنا كهذا قوميات دا Soomaali baantu ah. كذي. marka dadka Soomaali baantana waxa hadda ka saqawado oo qadka sagaloona ma aragna anaga waa intaan aad hadalayti daawiday waxyaalo fara badan ku fahmi oo adi oo ka hadalaydi oo runta ah كذي. dadka undoodayti meel rabo ayagana inay ka support gareeyaan oo ki caawiyona oo mar walba eray waxyaalo sadhiibidoona nin wax sadhiibido ma laha ba كذي. marka kule ayagana hadda waxay si kacaya mashaakirna insha Allah ta'ala kule ki salaam yani عبد الفتاح عبد الوهاب ki salaam insha Allah.
ها سلام الله أذر وها أبتي وميشا ميوي هورتا أدي أذا مدودنا إتكين دودس إلهي أولي مجيرو صح مركا dadkaas meeshaasay to jirana oo masaakiimiintaasna ilaahay sugoyena dadka macnaha oo xoogaa oo indhoojo furinya dalka haroogona ama dibadda haroogona ina undoodon hadda adduunkana isbedeli adduunku ma iska bedeli adduunkan ma iska bedeli walla dhahaw social media صح marka haddii ada maanta adi social mediahanayto ba'di hanka hadalayne oo dadka ada hanku doodayne صح marka wal ada maalintan eta ilaahay abuuri ma jiro wato صح ka wal yar isuba صح سفيان كي مقلو أبتي marka ilaahay kii roonade dadkayno may nagadena dad hundurooyna nagadena alxamdulilah صح rabbil caalamiin ilaahay meela nisheeni maraykan roogne yurub roogne صح carabta la rooge koonfur africa la صح rooge kenya la rooge meelle صح maalintan nin soomaali baantu aan roogayna ilaahay abuuri ma jiro meelana may صح way waxyaalaha qaarsho haddii aad aragto muhunduraaso ani ogsinta nin iska xanuunsin aya laakiin may way dhiigeya dhiig xanuunsinya maeyo aniga jirkay meel صح ka mid ah xanuunsinya maayne dhiigay ma xanuunsinyo صح marka haddii aad walba matar karto haddii dadka afka manki hiiliyaaso hadda unu markii unu koodoyne meel kasta صح laka dheego hataa kii madaxweynaha iska sheegoe dheego haddiisu ma dheegoyna dad an dhegaansidooe may laka sheegi geegi social صح media dhoowe صح horta ay ko horee yar hamarsa ku kooday oo soomaali ay kooday oo maalintaanayto dhibti soomaali baantu lanjeysidooy ka sheekoyahay صح adi markaasayto afto maraykan roogtay ama kale yurub roogtay haddii ada dadka an kood wayti ودب واي دب وين marka واي marka amahan dhane un hadda bakolkana ninku haamays sidii haddaay may la dhaho ana nin soomaali baantu inta masagalaayo dheegoyana nin soomaali baantu masagalaayo hata nin hadta dhahaw isa qabo oo maalintan ra'ije wali ana sheego ay dewsuna waxa ijeka dhiibidow male hadda adisa galli صح marka صح saasna dee kolley ba ilaahaygi weynaa waahidka ahayni aragooye صح wana nin adaab doonya kii soomaaliya صح rooge oo maalintan la rabaa ina dadyo undooda oo dhaho ani nebadaa naas la nuugo le nebadaa naas la nuugo le unu nebada qabna ni badbaadiya ya marna mayse dhigaayana facebook nin masaakiin ee meedye oo ilaahay badhahi bacluhu fooqa bacla nin meed in hataa markii la dhagaw korje la taabido aan ahayne facebook sa dhigana sidan ana nin dilo kana noo صح suubiyo haddana markii la صح koodana may dhahena nebada naas la nuugo le dhinisho la rooge may dhahena unu dhib unu qabna ilaahay abuuri ma jiro صح marka dee ilaahay kiin roonaade koley khayra kiin rajee adeer koley haddina dadki kale koleysa koodayona fiiriyaane إن شاء الله أدير أبتي إن شاء الله خير سيدو كله أدينا إن شاء الله ay سيدو كله khayra kiin way khayra kiin rajee إن شاء الله أي أبتي إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيا يلا سوق بنا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح حسين وأكو سلام يا ذير وسلامتها أدير. waxaan rabaa inaa wax yar ka dhiibto Soomaali bantu waxay leeyihiin xildhibaano hadday dhibaato dhacdo waa inay u doodaan xildhibaanadooda baarlamaanka ay soo bandhigaan ee u sheegaan inay dhibaatadii ku dhacday dadkaas
meel kasta ay joogaan gartay marka waxaa la rabaa in ay xildhibaanada ay leeyihiin ay u doodaan oo baarlamaanka ay dhibaatadoodii usoo bandhigaan ha okay adeer taas waxaan kaa leeyahay horta markaas aan kasoo qaado jubbaland aan kasoo qaado aniga horta jubbaland aan kasoo jeedaa soomaali bantuudana badankeeda waxaa waye soomaali bantu isdaba raacsan jubbaland iyo gobolkan jubbaland oo ay ka kooban yihiin shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ayay u badan yihiin sax marka ma ahan dad ayaga dadkooda soo doortay dadkaasay horta ma ahan sax dad oo maanta hogaamiye kooxeed soo doortay waay waa runta haddii loo hadlo waya dadkaas ma ahan dad dadkooda soo doorteen ma aha dadkaas waxaa soo doortay hogaamiye kooxeedaa soo doortay haddii ay yeeli waayaanna arrinta ninka meesha xukuma hadday yeeli waayaanna dee haddaan maka xirinba nasiibay leeyihiin adiga weligaa ma maqashay waad maqashaa kolleyba hadda ka soo qaad maxaa ninkan la leeyahay oo daraad gurigiisii la dhacayay kooxdiisii hadda maxaa la dhihi jiray qoladan habar gidirta afartan oo qabiilkooda ay u doodooyiin waa la maqlaa dadkooday u doodaan ka soo qabo haddana xamar laf ahaanteeda gudaheeda duubab oo dadkooda u doodayna adiga weligaa ma maqashay nin soomaali bantu ah oo maanta ku jiro bahalkan maxaa la dhihi jiray barlamaanka ku jiro oo dadkayga sidaan ama dadkayga saan weligaa ma maqashay waan maqlay waxaan maqlay macaanow ilaahay u naxariistay macaanow waa u doodi jiray hadda ma maqlin laakiin waxaa laga rabaa xildhibaanada meeshaas ku jiro ee ka tirsan soomaali bantu in ay u doodaan dadka dhibaatada haysata labada shabeelle iyo jubbadaba haye marka xildhibaanada la xiriira xildhibaanada dhibkiina u sheegta baarlamaanka ha soo bandhigaan eeg annaga xildhibaanada inaan la xiriirnada dhanba ma xildhibaanada say u joogaan 6 bilood miyaa ma ogi mar baa fasax la siiyaa fasaxa la siinayo wax kale looma siinayo inay baxaan dadkooda ay u tagaan waxay tabanayaan ay soo aruuriyaan ay soo qaadaan ay keenaan barlamaanka ay keenaan qayb baa jirta barlamaanka oo micnaha wararkaas qaabilsan oo hadhoodii ayaga micnaha ajanda ahaan usoo dhigi kara marka adiga haddii xagga aad tagtid bakistii aad meesha ka qaadatay ilmahaaga aad ula tagto oo qol yaroo oo macnaha duful ah oo qaxootigu kuuga yaalo aad gasho ilaa magaalada hadda ka soo qaad jubbada dhexe iyo jubbada hoose intay tagaan qolada jareerta runta ah intay tagaan tuulooyinka ma tegi karaan way baxaan kismaayay tagaan jubbada dhexe iyo jubbada hooseba kismaayay tagaan buulalay kuleeyin buulalkooday galaan sano bishooda xaggaasay kusoo dhammaystaan haddana way soo baxaan barlamaanka yimaadaan wax hadal ay sheegi karaan ama wax hadal ay soo qaadi karaan midna ma jiraan waa daacadda markaan kaala hadlo waay waayo haddii ay jiri lahaayeen kolley adiga kolley qof hadda mar haddii social media aad soo gelayso kolleyba waad maqli laheed idaacaddana waad ka maqli laheed xildhibaan hebela waxaan soo jeediyey xildhibaan hebela sidaan qolooyinka kaleba waa la maqlaa dadka ugu dhibaatada badan ayaga maxaa loo maqli waa ayagoo dadkooda u doodayaan wallahi dhibaato waay marka bariiskooda unbay raadsadaan dadkaasayto bariiskooday cunaan insha allah masaakiin intaasna intii laga gaaraya 1 vote iyo 1 man intii laga gaarayana dee dhibkooda hay iska haystaan laakiin annaga dhibaatada lagu hayo waa sheegaynaa taas meesheeda ha ahaato laakiin meeshan waxaa jirta adiga weriyaad tahay adiga waxaad samaysatay idaacadaad samaysatay idaacadaad waxaa u samaysatay adduun weynaha dhan wixii ka dhac inaad sheegtid aad u samaysatay adduun weynaha wixii ka dhacba chinaha wixii ka dhaca waad sheegtay maraykanka wixii ka dhaca waad sheegtay masaakiintan walaalaha aad isla tihiin isku diinta aad tihiin ya isku dalka aad tihiin dhibaatada maanta kufsiga ama dhaca ama hanjabaada meesha dalka gudihiisa loogu geysanayo maxaad u sheegi lahayd haddaad idaacad local tahay haddaad maamul goboleed tahay haddaad dawli tahay war
taas tii qalad maanta waaye oo qalad dowladda waaye iska lahayd ayaa waxba ka sheegin tii dowladda iska lahayd taas qalad waaye marka waxaan aan tabanoyno waa taas walaalay waan fahmi karaa dhibaatada jirta laakiin xal sidii lagu heli lahaa ayaa la rabaa xal sideed ugu sheegi laheedeen dowladda dhibaatadaasi jirta dowladda waxaa way indhaheeday xiratay dhegaheedana way furaysatay waayo social mediaha nin aan arkoyn nin aan dhegaysanoynin male qofka madaxda intahaa ruuxa u shaqaysa intahaa ruux haddii asaga laf-aantiisu dirsadaan maanta maxaa la sheegay maanta maxaa cusub dee kolley wax kasta wuu maqlooya ama kale kamama marnaba asagaba markuu soo galayayba wuxuu ku soo galay masaakiintaanayto ayaan caawinaya bal hadda markii meesha fariistay intay ka martay caawinaada masaakiinta sax waaye xildhibaan kastaba saasuu kusoo galaa baarlamaanka inuu ka tirsan yahay shacab marka aawayde madaxweynaha saasuu kusoo galay ha kulligood saasay kusoo wada galeen laakiin waa in la baraarujiyaa waxaa laga yaabaa inay shaqooyinka ka bateen ood mashquulsan yihiin wallahi horta ani in badana wax meeshan ka hadlay dhalinyaro badan waxay dhaheen inuu mashquulsan yahay laga yaaba inuu saan yahay laga yaaba kolleyba waa fiirinayna walaali adna wixii karaankaaga aad samayn karta sameey laakiin ummaddan way dulman tahay wallaahi bilaahi dowlad iska dhaafee warfidiyeenada hataa way ka ehdeen telefishinada ka ehdeen weriyaasha ka ehdeen tafatirayaasha wargeysyadiya ka ehdeen cidle maanta dheg u bajaq u siinaysa masaakiinta ma jiraan wallahi waa wax laga xumaado waaye dhibaatadaas saaqday dadkaas wax laga xumaado waaye waana ka xumahay insha allah waxaan isku dayayaa in aan waraaqo u qoro qaar iigu jiro facebooka sida ra-iisul wasaaraha arrimahaasina usoo bandhigo waayahay walaalay waayahay khayr allah ku siiyo annaga dhibtaasaana haysata annaga ma hadalno waxaa waaye waxaa la yidhi ariga ma aragtay waa laba nooc ido iyo riyo waaye idaha macnaha idaha waxaa u hadlaa riya haddii dhurwaa soo gala hadda barida hadduu goosanayo hataa unbuu leeyahay maahee wax kale ma dhihi karo laakiin kan haddii saa loo taabto wuu boodo insha allah xaqiina waad helaysiin insha allah xaqana wuu soo dhow yahay waa insha allah adeer khayran kuu rajayna insha allah adeer hay maca salaama salaamu calaykum assalaamu calaykum waad maqlayseen kolley gabadhaasayto waxay ku hadlaysay arrimihii waxay ka tiri kolley waxay leedahay insha allah waan dadaalayaa hataa qaar aniga meel aan ku ogahay hataa macnaha ay iigu jirjiraan ayaan waraaqa u qorayaa si hataa ra-iisul wasaaraha arrintaanita aan u gaarsiin lahaa marka walaal jira allah ka dhigo wixii macnaha dadkii kala saa idinka la hawsanoyaa idinkiina facebook waa soo geli la'diin habaarta idin haysataan ba la yaabanaha yani habaara idin haysataaye habaartan ilaahay ha idinka badbaadiyo wallaahi billahi inay habaar idin haysato soomaali baantu habaarad qabtaan habaartan ilaahay idinka badbaadiyo ciddii idin habaartayna kolley maba noolaan u malaynaa waayo haddii noolaan lahaydba dhowr ari intaan neefo ari intaan u geeyo aan u dhihi lahaa war soomaali baantu u duceeyaan dhihi laa awoowe laakiin inuu nool yahay maba u malaynayba marka sidaan ma ahan ishilqaama dantiina fiirsada war xaqiina dhacsada ilaahay ka cabsada ya waad u jeediin dhibta meesha taalo dadkiina dhibaatada haysato waad u jeediin insha allah biidni illaahi kariim dhibta horta ilaaha qaadi kara annaga ma qaadi karno marka dhibtan ilaahay hanaga qaado intaas ubaan dhihi karnaa calaykum salaam walaal يا عافمات كسل ياها adeer waa la iska fiican yahay mana la fiicna kolleyba waa la iska xanuunsan yahay إلى عافمات كان إن شاء الله هاي محا عصب ما أنت محا عصب adeer maanta waxaa cusub macnaha jadwalka ammaanta ka hadlahay wuxuu yahay macnaha idaacadahan dawliga ah ama maamul goboleed ama dawladaha hadda sheegta Soomaaliya iyo
ilaahay ku ronaade maxaa la dhihi jiray dadkaaniito oo isku sheegaya maxaa la dhihi jiray midnimo qaran iyo war dhibaatadan masaakiintan soomaali baantuu gaaraysa maxay uga hadli lahayiin ilaan soomaalidan kale hadday toore iyo balaayo isku duraan ilaahu qabri dahar hadday isku dildilaanba waa la sheegayaa masaakiintan aan dilaynin ayaga la dilayo oo maalin kasta dhibkoodaysana maxay idaacadahan uga hadli lahayiin su'aal waa zaid intaas way horta waxaa la lax meesha isdhigtaa lagu qala ma fahantaada waa la ogyahay taan aniga jareer weyne waa ka soo jeedaa maasha allah hooyada aabahayba jareer weyne way yihiin ma fahanta laakiin adigii dhibaysnaaba haddaa dhulka iska qaadayno siigada aadan iska jafaynin yaa kaa jafaaya maya waay ciidahana maalin baa loo kacay laysku dayay in wax loo qabto sheekadana meel fiican bay joogtay jalaaci jareeray noqotay qof walba jalaaco dhan may maqashaa marka haddii markii loo kacay oo la dhahay bal dadkani way dhibaysan yihiin u kaco oo lala u sameeya dadkiiba hadday sidee lagu xaliyaa ii sheeg adeer ideegoyte meeshan teleefon waa idhibooye teleefona idhibooye wed waxaan ku dhahay markii dadki weynihii ay kaceen oo ay damceen inay wax noo sameeyaan haddiiba dadkii annaga aan ka soo jeedno dhibaysnaayo waddankii soomaali joogeen hadday ayagiiba ay soo hadleenay dheheen annaga dhibna ma haayo adiyaa u ooynaysaa ii sheeg dadkan u oyna aniga kaas 2 ruux 3 ruux oo maanta ayagaba caada qaata ah dad caada qaata ah ani ummadan dadkooda uma aamusayo aniga zaid dadkaas ay hadlayaan aad arkaysid aniga dad weli aniga ii dhow waay been kuu sheegay si fiican aad iyo aad ay igu dhow yihiin ninkii lahaa nabada naas la nuuga leh aniga waa adeerkayga un ah zaid laakiin labada qof waa isdhali karaan laakiin isku siyaasad ma noqonayaan zaid asaga siyaasadiisa waa u gaaro waxay tahay nabada naas la nuuga leh nacamtu aniga siyaasadaydu waa ii gaaro waxay tahay aniga dadkayga dhibaatay qabaane ee dulmigaanayto ilaahu ka qaad iyo seen dulmigaan iskaga qaadnaa zaid labadaas mabda'an kala wadana aniga meeshaasayto nabad naas ninkii ku yidhi ninkii dalka ka tagay xoolihiisa waa la dhisanayaa guryihiisa waa la qaadanayaa kanaa la samaynaa meeshaas nabad maa taalla may adigana waxaad ileedahay nabadaa naas la nuuga laad ileedahay marka taas wax soconay ma ahan kollayba wakti unbay leedahay waktigana waa la gaari doonaa kollayba inaan aamusno walaalay ma ahan waa inaan hoggaanka dhan walba aan ka wadanaa meel alla meeshaan joognaba inaan isku xilqaanno dad nin ilaahba waxaas yidhi dadkoo dhan ma wada sinna farahaas waay fartaan faryaraydan say wax u qaadato fardheertaan say wax u qaadato isku mid ma ahan marka dadkii saasay u kala sareeyaan marka haddii adiga macnaa maanta ilaaha ku siiyey haybad ama caqli ama awood ku hadash haddii ilaaha ku siiy dadkaaga inaad u hadashid waay adduun weynaha waa laga baxay xilligii listooreynay xilligii lisdilay af waay hadda af keliya okay ciidahani jalaacda oo Soomaali joogaan kuraasaha iyo miisaska kugu fadhiyo ayagaba dadkooda garab qabtay ma fahantaade waa la ogyahay okay annaga jareer weyne inaan kacno ummadii la caawiyo war annaga dhinac walbaan ka liidanaa ma fahantay hadda fiiri nina meesha wuxuu soo qoraya nuur xuseen la yiraahdo adeer jareer weyne guri ma laha because awoogiisa ugu sheekeeyay eedigiisa ugu sheekeynaysa abtigiisa ugu sheekeynayo ma fahantaade cunugii maanta 5 sano markuu ka kaco cunug jalaaca hadday aragtid nin weyn 5 sano markuu gaaraa qabiilkiisii wuxuu yoo dhan u ogyaa ma fahantay maxay ahayd ayaydiisaa dhehe hooyo
saambaa daheed cidahaagaa waxaa lahaa jareer waxay yihiin ma lahan adiga markaa kiila ku weynaana ma fahamta annagana olmis waxaana ilaaha jooga aamo ilaaha jooga dadkana ayagoo yirisaa qabiil maskaxda loogu shubooyaa ha marka waa cidihiisuu ka keena ha u malayn inuu maskaxdiisa lagu ka keena cid wuxuu ku soo weynaaday waxyaabaha si laga sheekeeyo waxaasba soo gashtay jaakaduu soo gashtay waxaa naagteen uu soo xirtay meeshuu isu soo dhigay jareer weyne waxba ma laha guri ma laha waa kahay ha u malayn inuu keligii maskaxdiisa uu ku haysta familku asaga dhex joogaa sheekadas lagu hayaa ma fahamtaada kii marka maxaa ka dhaadhacsiin kartaada maya waay ha marka waxaa waaye dadna way fiican yihiin oo dad wadada muslimiinta haysta oo muslimnimada ay ku weyn tahay waaye dadna maskaxdoodaba qabyaalada ku qufulan gartay marka sinji siifu uu leeyahay oo meeshuu ka imaaday waxyaabaha laga aqaana ma fahamta hala yaabin والله يا أبوي marka insha Allah ana waxaan dhihi lahaa waxa waa qofka asaga qiimo isku yeela qofka asaga kor isku qaada qofka asaga walaalkiis caawiyo qofka asaga is caawiyo ma fahamtay oo adiga maanta highwayga hadaa jiifatida dhahdid maxaan yeela ilaaha jooga dhahdid ma malaysa ilaahay inuu gaar walba kugu soo socdo inuu ka leexin maya waa ku maraale ada haddaa marka ku xisaabtantid inaa ibni aadam tahay qof walba ilaahay soo uumay qof walba waxaan lahay bax camal soo samayso sax waay ada ilaaha joogaa leh haddaa ku haysid da ilaahay kuma dhahaa jareer weyn way dhibaysiina ka kaca ilaah aqli uu ku siiye mujaadida ilaah aqli ku siiye ha markaana waxaan dhihi lahaa insha Allah annaga aan is caawino qofkii dhibaysan ha la caawiyo qofkii waxaysa ha la caawiyo qofkii dulmi lagu haayo isku daynayna is caawino annaga markaan kala sii jeedno daacid isku ka keenaysa ma laha ma fahamtay waa runta marka insha Allah ilaahay dadkan xaqa ha tuso madaxweynaha ilaahay xaqa ha tuso maxay ahayd wixii hoos fadhi ilaahay xaqa ha tuso baan dhihi lahaani waayahay walaalay waay insha Allah bim intee joogtaa adin aniga gabadhaas ma taqaana skoyba kasayte canab xuseen kasaase canab xuseen gabadhiya way kaste anab dhalooje way sarogsa warya sarogsa lakdhakoy waay nay may gidaare adan makisukaan sida abtiga waaye may gidaare iska xishooda ee dhaabtiyo ama ma faylanta dhaabtiyo that's your dad your mom too brother وقصايته يحيى شوكو أنا لولا شوكو لولا كسوي كده تكسته يحيى شوكو بدتي لولا كسوي ميل ده يحيى شوكو نسيك كستيان يحيى شوكو لولا شوكو cause you told me his name and then I is that his name لا إله and then I know لولا إن شاء الله وأكو السلام عليكم إن شاء الله السلام عليكم السلام هيا إن شاء الله خير عافية هيا السلام عليكم أيه السلام عليكم ولا نعيمة
وحير يسوق على ريال وحير أنا ريمو تعالي وحير يسوق وحير تعالي انت عمر I don't know who cheated. Iskala. Mar laa soo codsaday. Mar laa soo codsaday. منصر يرو منصر مر لوادي سوعد صبل هذير مر لوادي سوعد صبل Soo qabanayo. Is on